السلام عليكم. waxaan ahay Qaalib Axmed. mushkiladii ugu weyn ee maanta dhalinyaradeena haysta waxa weeye inaanay garanayn qiimaha naftooda. haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad ku lumaysaa wadooyinka nolosha adigoo aan helayn dariiqa saxda ah. haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad baranaysaa tacliin aan kuu qalmin, waxaadna gelaysaa jaamacad aan kuu qalmin. haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad la saaxiibaysaa asxaab nolosha ka dhacay qaar axmaqiina. haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad qalbigaaga ku aaminaysaa dadaad isleedahay way ku jecel yihiin, runtiina kuma jeclee waxay qalbigaaga ka miiranayaan xikmadaha, kadibna si degdeg ah ayay kaaga baxayaan iyagoo kugu reebaya raad xun. haddaanad garanayn qiimaha naftaada waxaad waqtigaaga ku luminaysaa adigoo oo fadhiya 24 saacadoodba maqaaxiyo iyo social media. waxaa muhiima mar walba inaynu garanno qiimaha nafteena, waayo waxaanu nahay makhluuqa ugu qaalisan makhluuqyada uu Ilaahay abuuro. waxa wanaagsan mar walba inuu qofku garto qiimaha naftiisa. haddaanad qiimaha naftaada garanayn waxaad la kulmaysaa caqabado aan weligood kaa dhammaanin adigoo ku jahwareeraya sidaad uga gugaali lahayd ama u weerari lahayd caqabadaha. mar walba waxa wanaagsan inaad ogaatid inaad tahay qofka ugu qiimaha badan adduunka, inaad ogaatid qofka ugu sharafta iyo karaamada badan wax walba Ilaahay abuuray, because waxaad leedahay caqli, because waxaad leedahay himino, because waxaad leedahay rajo dheer. laakiin dib ha isu dhigin. haddii aad dib isu dhigtid cid walba way ku yeesaysaa, waxba lagama soo qaadiyo, balse adigu waxaad isu aaminto ayuunbaa tahay. haddaad aqoonsato inaad tahay qof guul gaari karaya, guusha waad gaaraysaa oo wax ka hor istaagaya ma jiro.